سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد runtii waxaan u mahadcelinayaa ururka dhaxalow isku xilqaamay ururka xafladda. waxaan kaloo u mahadcelinayaa senatarada, xildhibaanada, aqoon-yahanka, odayaasha, dhalinyarada, waxgaradka iyo haweenka intaba runtii ka soo qayb galay madashan iyada ah. dhammaantiin waa inii mahadcelinayaa. xaal marintiina boqolkiiba boqol ay ka gadoomay aada iyo aada u mahadsantiin. haddii aan intaas uga gudbo oo runtii anigana inii mahad celiyo waxaa laali iyo wixii saaxiibka yuusuf xasan ou sheegay. haddii aniga cafis laga dalbaday anigana aan dalbado hadday wax iga dhaceen ama dad wax iga gaareen intaba. intaas markaan ka gudbo runtii arrintan soomaaliyadan ay u istaagtay sida la sheegay oo ah murankii nagala dhexeeyey badda annaga iyo Kenya. waa masantahay imaam xasan waa saaxiibkay waana imaamkeyga. Soomaaliya waxay rabtay in aan tagno maxkamadda adduunka. Soomaaliya waxay rabtay in annaga iyo dowladda dariska aan nahay ee Kenya baddeena naloo kala xadeeyo. xadayntaasna loo maro habka sharciga caalamiga ah oo ah in xariiqinta laga jiido beriga oo aan badda laga jiidin. Soomaaliya waxay rabtay in dhulkaas lagu muransan yahay oo annagii Kenya naga dhexeeya oo 125 kilomitir square ah inuu xaggeena soo maro. Kenya waxay rabtay oo ay sheegatay in xadka waa hore ay calaamaysatay Soomaaliyana ay ka aamustay. sida inta laga sheegay 1979kii calaamaysanay tiri 89kii calaamaysanay 95kii calaamaysanay 2005kii calaamaysanay. Soomaali nagala hadashada ma jirin oo waa noo aamusay Soomaalidii. taas daraaddeed hana loo xukumo cid waxaa nagu haysato malay maxkamadda la tagtay. markii hore horta waxay diiday inay maxkamadda aado oo waxay tiri siyaabo kale aan ku kala baxno. maxaan ku kala baxaynaa wada hadal? maxaan ku kala baxaynaa oo kale maxkamad African Unionka hanoo garsooray lehen oo midowga Afrika annaga Soomaali ka tirsanaa. waxay kaloo xataa soo jeediyeen special tribunal wax la yiraahdo oo CLC da Commission of the Law of the Sea ee hadda u qaabilsan UN-ka badda ay sameyn kartaan loo sameeyo. Soomaaliya intaas oo dhan ma ogolaanin. Soomaaliya maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ayay dalbatay. halkaasaa la isla aaday. waana run madaxweyne xasan sheekh xilliga uu madaxweyne ahaa ayaa dacwadaas la geeyey maxkamadda caalamiga. annagii Kenya isma dagaalsanayn. wax dhib hadda naga dhexeeyana ma jirin. colaad naga dhexeysana ma jirin. sida hadda la isugu kiilaayo oo la isugu miisaayana ma jirin. marka waxay tusaysaa dee in la isqabto oo cadaaladda adduunka la aado macnaheedu maaha in la isdagaalo. qasab ma aha in la isdagaalo. madaxda dalka joogtaa laga rabaa ayadoo cidna la dagaalin oo cidna aan dhibaato u geysanin inay hanaan diblomaasiyadeed iyo hay'adaha caalamiga ay aadaana laga rabaa. Kenya maxkamaddii waa tagtay waxay sheegatay waxa ayada inay leedahay. marka waa inaan mid ogaanaa maxkamadda markay xukunka ridaysay waa dhageysanayseen intiina badanaa laga yaabaa qaadiyadda Maraykan ee ahayd ee maxkamadda go-aankeeda ridaysay 1 saac ku dhowaad ayay hadlaysay. 79 page oo dokumenti akhrisay. 200 iyo dhowr article ku qornaa ama qodob. intaas waxaa la dhageysanayay wuxuu ahaa go-aanka ay ridayso qaadiyadda la sugayay oo beeshka ugu dambeeya ku qornaa. Kenya waa laga diiday. waxay sheeganayso dhan waa laga diiday. waxay sheeganaysay xadka in la calaameeyo lama calaameynaa la yiri. Soomaaliya naguma qabsanay tiri waa in ku qabsataa la yiri. Soomaaliya inay ku qabsanayna macnaheedu ma aha inay ogolaatay ma aha. ayaguna waxay rabeen aamusnaanta inay ogolaasho ku fasiraan waa laga diiday. meeshaas waa meesha MOU-ga 3 jeer oo faa'iido noo lahaa. meel kamida waxaa waaye inaan badda ka muransannaha ku qorneed. waxaa la yiri MOU ku taallaa in meesha muran ka jiro oo lagu qabsaday. waa lagu qabsadaa ku taallaa la yiri. MOU wuxuu kaloo faa'iido u lahaa wax la yiraahdo continental shelves oo ah qalfood qaaradeedka ka xageeya economic zone-ka
inaan 350 kilomitir aan helno oo markaas deadline-keeda dhacaya runtii in laga gaarsiiyey ahayd baarlamaankii anigii saaxiibkeena dheer aan ka wada tirsanaa nafteeda waan ka tirsanaa maalintii la diidayna waa dhex taagnaa waan la yaabanaa laakiin baarlamaankii ku xigay jawaari guddoomiyaha ka ahayd sagaalaad yaa markii looyaradii imaadeen soo celiyey MOU-gii sababtoo waa laga maarmi waayay haddii la diidi lahaa Kenya waxay ku marsiyootay Soomaaliya objectionkii inaan isdiidin annaga ayaga inaan qalfad qaareedka xareysano Soomaaliya baarlamaankeeda diiday taasi looga baxsada baarlamaankii ku xigay ayaa soo celiyay MOU-gii maadaama ay looyaradii dalbadeen arrintaas iyada ah waa marka labaad faa'iidada lahaa oo aan ku helnay 350 mayl oo continental service waxa la yiraahdo yaan ku helnay waa faa'iidada saddexaad wuxuu ahaa wuxuu yidhi u furin maxkamadda la aadi karo oo ah inaan wada hadalnay annagii Kenya oo wada hadalkii annaga hal fadhi inaan yeelanaan jeclahay ma hubo wasiiradeena la weydiinaa markaas jiray laakiin xukuumaddii naga dambeysay madaxweyne xasan sheekh waa hubaa wasiirkeeda arrimaha dibadda Baylo markaas ahaa mar inay Kenyaanka wada fadhiisteen mar kale la balansanayna ayaga gooyo diiday wali waxay dhaheen Soomaaliya ma tagi karno Djibouti lagu ballamay ka baaqsadeen waxaa loo cuskaday in la wada hadlay oo wada hadalka Kenyaanka marka waxay dhaheen arinta wada hadal kaliya lagu xalinaa maxkamadda uma leh awood inay gasho laakiin waa laga diiday waxaa la yiri wada hadalkii waa soo dhamaaday marka maxaan haysanaa MOU-gaas marka 3 arrimo Soomaaliya u keenay in maxkamad aan tagi karno keenay in aan ku qabsanay Kenya wixii ay sheeganaysay 4 jeer oo hore laga soo bilaabo 79kii ilaa laga soo gaaro 2005 2009kii muran la geliyay dad Soomaali waxay arkayeen muran gelinta inay xumaan tahay laakiin waa lagu faa'iiday hadda markii maxkamaddii la tagay 350 maylna waa ku soo helnay waxaas oo dhan oo wanaag adoo qabanaya aamina si fiican u sheegtay xildhibaanada waa sidii nabi yuusuf oo kale asagoo la dulmiyo ceelka lagu riday walaalihiis ay ceel ku rideen ee haddana waxay lahaayeen awga waankiisa tuug waxaa jiray ay lahaayeen sida la sheegay laakiin maxaa meeshaas marka anaga aan ka bara karnaa arrintan guushii waa timid waa soo hooyanay dad badan oo hadda waxaa arkaa horta waxa dadka wareeriyey waxaa maqli jiray culummo aana wareerisay dadka dhacda dadka waxaa wareeriyey ka horta kuwa aqoonyahanka sheegana kuwaas dadka wareeriyey mid walba waa soo istaagaa wuxuu ku leeyahay kayskan saan waaye intay ka dhacday wax inta badanna waxay ku hadlayaan waa theory la yidhaahdo dhagar maleeg conspiracy theory la yidhaahdaa dhagar bas ay maanta oo waxooda ku dhisan yihiin wax mala awaal ay isaga dhisan yihiin MOU-ga waa hal page iyo bar ingiriis simple ku qoran xataa ingiriiska adag kuma qorno oo sharciga adag xataa kuma qorno qof kasta oo luqadda ingiriiska yaqaan akhrin kara fahmi kara ninbaa ku soo istaagay saas weeye professor Hebel la yiraahdaa arintaas saan waaye kuwaas dadka horta waa wareeriyeen siyaasiyiin sida la sheegay dan lahana dadkii waa wareeriyeen oo isla Hebel ku qalloocina dadkii waa wareeriyeen dadkii caamadaha marka waa la wareeriyay ayagu dambi ma laha oo aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii waa wareeriyay laakiin meesha wax dhib badan maga oolin baruntii hadii la fiiriyo maxay marka anaga halkaas aan ka aadnay waxaan rabnaa inaan ka aadno Soomaaliya iyo Kenya annaga badan lahayna ma jirto bad ay Kenya lahayd lama jirto annagana badda Cabdiraxmaan ogaa si fiican u sheegay xildhibaanka annagana siyaan u rabnay badeena baysay lahayd waxaan niri badda maadaama aan naloo kala calaamaynin baddana waxaa lagu yeeshaa beejka labaad ay ku qoran tahay xukunka laga soo saaray hadda heegay ku qoran tahay qofkii raba qaadiyadda waxay tiri bad waxaa lagu yeeshaa ama xad waxaa lagu yeeshaa inay labada dowladood ku heshiiyaan oo ayagay dhahaan saanaan ugu heshiinay ama in loo kala gal sooro laakiin adiga inta iska baxdid adiga hadda inta baxdo dhul meeshaan yaallo anaa iskale ma dhihi kartaa ma dhihi kartid waa inaad sharci u haysataa soomaalidii waxaa laga dhaadhiciyey baddeenii waayo wax la qaadana waa sida la sheegay isticmaalkii soo nooga tegey annagii Kenya arrintan kuma wada hadal dhul iyo bad labadaba faraha isaga qaadnay waana run oo waxaa la sheegay Yuusuf Xasan si fiican u dhigay annaga Soomaali weyna ilaa hadda weli meel looga noqday ma jirto halkaas aad degannahay waxa markii Kenya badda calaamaysato looga aamusnaa waxay ahayd hal calaamay hadii la yiraahdo xagee laga calaameynaa dhulka ma dhahayno dhulkee waa imaanay marka shida loo yiri alla anaga waxaan aaminsanay wax la yiraahdo Soomaali weyna la aaminsanaa ayadana shibtii rabtay inay ka faa'iideysato halkaas waa meesha marka ay cilada ka timid marka dhulka waa la gartay dadii hal xadeeyaa la yiri
annaga waxaan idhi dhulkaan oo kaga bilaabo ayagana waxay dhaheen baddahan oo kaga bilaabo laakiin sharciga adduunkii oo la jiraa annagoo nala jiraa daas waa maxkamadda u dhiirin annaga laakiin wax annaga aan lahayn oo meel noo yaalay oo hadda nala ka qaatay dadka qaar waxaan ku qabsay ku qadimay sidaa la yidhi kenya waa nagu qabsatay waxay naga qaadatay ma jiraan waxa waa ku muransadeen dhexna u yaalay boqolkiiba 80 sida wasiirka uu sheegay annagana loo xukumay ay looyaradii ay sheegeen waa takay diida soo maaha waxaa loo furay wax la yidhaaho humanitarian access oo waxaa la yidhi Tanzania iyo Soomaaliya isku tagaaya haddii saa lagu xukumo Kenya waa xirmaysaa meelaha loo furaa la yidhaha loo shaqfal duleeliyo يعني مالها لو جراديو منهاج قيل يرى لو جراديو لو فيري سو ما وابا الشيخ تبقى قاديده مو بقرنبا وماشي وقاديده سوماليه ديدي oo yiri ma jirtay sideeda loo dhaafo marka wax anagana ka qaata ma jiraan waxayni waa haysanaa guulaana jiifnaa dawladihiina waa ka wada shaqeeyeen oo kulligood midaan ka shaqeynin ma laha baarlamaankii sideedada saaxiibkeena dheer aan ku jirnay wax difaac leenaga ahayd waa run xumaan kama haynba waxa la qaatay hala soo dhiciyay ka ahayd laakiin baxrayna geli gaareen baarlamaankii sagaalaad ka gaaray laakiin wax baarlamaan loo sameeyay saas waay baarlamaankii sagaalaad ka gaaray oo soo qabto oo jawaari maadaama nin sharciga yaqaanana oo ahaa waxaana aad u fahmay asagii dawladdiina isla fahmay runtii madaxweynaha markaas joogan si fiican oo uga shaqeeyay xukuumaddii wixii dhammaay dad isfahamsan ay noqdeen dadka markay aqoon leeyihiin waxay uga duwan yihiin dadka kale waa sidaas waa inay ogaatiin intaas uga duwan yihiin dokumentiga loo tagay akhrinayaan waa fiirinayaan dalka danba ugu jirtaa ha laakiin haddaadan aqoon lahayn dee wixii waa ku wareeraysaa waaba waxaas leedahayba iska tuur intii ay ku imaanayeen marka looyaradii ay yimid waa la soo celiyey waa la keenay waa MOU gadaala loo soo celiyey doodii saasay ku bilaabatay saasaan ku guulaysanay inaan ogaano waayo marka maxaan ka baranay marka horta Soomaali badan sharciga adduunka fahanay waa runtiis Cabdiraxmaan hadalku yiri waa markii ugu horeysay diblomaasiyada aan ku guulaysanay horta doodii Soomaalida waxay baratay sharci muxuu yahay international law muxuu yahay maxkamad cadaalad adduun maxay tahay anaga dee raganimo wax ku qaadan jirnay Soomaaliya Kenya inama taqaanaan iyo dagaal Soomaalida dagaal ay taqaanaan wax sharci iyo diblomaasiyada lagu kala baxaa Soomaaliya ma taqaano bal isku sheegayno inaan diblomaasiyada sharci horta aan guul ku keenay waa taariikhi waa koow oo markii ugu horeysay inta kale qorayna noo cabaysnaa hadda raaxta waa noo cabaysan yahay marka qoray noo cabaysnaado lama rabo adduunka sharciga lagu kala baxaa Kenya waa naga awood badan tahay waa naga xoog badan tahay waa naga galgal badan tahay waa naga taageero badan tahay madaxweynaha hadda wuxuu gudoominayaa Soomaaliya golaha ammaanka yow la fadhiyay madaxweynaha ugu horeeyay Afrikaan oo qaabilay madaxweynaha Mareykanka ku tabarmanihin laakiin sharciga nooga hiilay sharciga noo hiilay waliga Allah marka sharciina ku dhiganaata u baahanta xoog hadaa aad waa laga xoog badan wax ku keenay male marka heesaha la alifayo iyo abwaanada waxaan kula dardaarmayaa inay sharci iyo sifilnimo iyo ilbaxnimo iyo halkaas dadku u jeeyaan waa la qaadanaa iyo waa la dilaa iyo qoraya la qaadanaa iyo waa gaala la dilaa iyo xoolaha shiribka in badan oo ficneeda ku jirtay laakiin xoogaa dagaal ku jiray dagaalkan tirada badan Soomaali waa ku baaba'deen aan iska dhaafno wax lagu keenana ma la runtii marka waxaan kaloo ka baran karnaa wixii midnimo lagu raadiyo waa la helaa wixii midnimo lagu raadiyo waa la helaa wixii tafaraaruq lagu raadiyana waa la soo weynaa ayadana taasaan ka baran karnaa waxaa kaloo muhiim u rabaa maanta inaan wasta ka xariiqo warsaan dhulka ugu dagaalamayno iyo badda dhiigga dadka Soomaaliyeed aan ugu dagaalano أنا وحنا مثلا بدنا نجمع قناة وطن قبل إكرانا كخالصين. واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كعبض إلا الدنيا ولا النبي عليه الصلاة والسلام وحكم يسون لي خوف مسلم الله داديو. أنا لي جالس كده داديني يدي ما تلا سوق جيسني عنده يصير مالك استهاد واكن در شارع المكان كون قفول ولا دلي الحساي ولا برور دقاي. ورديك يقولك يا خالصين. dadkii dhulka horta yaa qaalisan horta anaga conceptiga inaaba qaldanba war dhulka dadka ka qaalisan ka xormo badan dhiigga dadka ka xormo badan dhiigga dadka ka muhiimsan dhiigga dadka ka fiican
sida aan badda u raadinayno waa inaan dhiigga qof kastoo la dulmiye u raadinaa ka igraana aan ka bilownaa soos maaha laakiin markaan dhiigga yaraysano dhulka qiimo ma leh muwaadinkaa ka muhiimsan wax walba muwaadinkaa ka muhiimsan fikirkaas waa inaan ku celcelinaa laakiin annaga waxaa nala ka dhiga haddaa aragto qofku dhahaya dadka iyo dhulkaa muhiimsan waa keligii talis iska jir ha ku sirmin dadka iyo dhulka dadkaa muhiimsan dhiigga dadkaa ka muhiimsan dhulka saasay diinteena noo sheegaysaa saasay bini aadanimada noo sheegaysaa saasay qiyamka bini aadanimadana sheegaysaa qofka bini aadankaa muhiim ah marka waxaan u baahannahay inaan midnimo wax ku wada raadino dadka hadda kusii jira marka waxaan aada uga xumahay runtii dadka weli biyaha calowga kasii kaluumaysana habeen dhawada waxaan dhegeysanaya madaxweynaha xilkiisa dhammaaday dadkii inta ka hadloo dhan kaalintiisa waa abrishiyeed gareeye oo hadda ugu dambeysay doorkiisa waa loo wada sheegay laakiin asaga wuxuu isku dayay arrintii inuu kaga faa'iidaysto oo biyo calowga ka dhex kaluumaysto oo MOU-gii dadnimada waxay ku jirtaa ama decency wax la yiraahdo ama dadnimada waxay ku jirtaa qofka aad siyaasadda isku haysaa xataa guushiisa inaad qiri kartid qof asaga u diida mala guusha dadkii oo isku dayanoo dhaho baarlamaankiisdeeda u mahad celinaa war baarlamaankiisdeeda waa ka hadda la sheega waa qaldanay asaa taaganba oo waa qaldanayna maxaa ugu mahad celin tusaale aan haddeertaan anigii dhagdheer baarlamaankaasaa ku wada jirnay waxaan saxiixnay heshiis sharci la yidhaahdo dhaxal dhowr maxaa ku qoranay ma taqaaniin inay dowlad soomaaliyeed ee shacabka soo doortaan keliya ay ka hadli karto arrinta badda iyo dhulka dowladdii xasan sheekh maxamuud iyo dowladda farmaajo madaxda kenya shacab maa soo doortay hadday badda ka aamusi lahaayeen ka waran dhaxal dhowr waa qaldanaa heshiiskaas sharcigaas baarlamaanka waa qaldanaay waa heli kartii waxaa ku qoran dowlad dadka soo doortay war dowladda soo goorma gaaraynaa waxaynu waa wada tegi rabaa ya marka fiiri caadifadii emotional wax lagu gaaray war baarlamaankaas go-aankiisiina waa qaldanay waxaa ka daran wallaahi madaxweynaha waa ogyahay farmaajo waa ogyahay markuu hadalkaas jeedina inay baarlamaankii go-aankiisa khalad ahaa waa ogyahay sababtoo ah looyaradiyaa u sheega waa ogyahay laakiin dadou ku xume isleeyahay xaggaasoo ka baxay ra-iisul wasaarihiisii ku laabay kenya igu soo dirtou dhahay ra-isul wasaaraha oo goormay kugu diraysa kenya xagga uu ka aaday madaxweynihii jubbaland axmedoob oo la koray war waxaas dadnimo maaha maantaasoo kale waa maalin guuleed waa maalin la isku wada tahniideeyo waa maalin guusha la wada sheego waa maalin midnimo la muujiyo waa maalin xataa dowladda dariska ee aan guusha ka helnay loo muujiyo inaysa guushaas iyo waxaas ay tahay wax kale annaga ayagana daris aanahay waxa naga dhexeeyana ay ka badan yihiin waxaan isku diidanahay leadership kaas waaye hoggaankaas waaye hoggaankaasaa la yidhaahdaa ee hoggaan afkiisa iska aarsana cidda oo kale ku boodaayo maaha waa ilaahay mahadiis doo xasha shaq soo reeb inuu mahad celiyo intaasaa malaya baraaniyo marka waxaa muhiim ah midnimo soomaaliya waxaan ku weyno ma ku helayno tafaraaruq waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dalka wuxuu ku jiraa xaalad aan lagu fiirsan karin haddaan rabno inaan waxayna dhacsanno adduunka derisnimo kula noolaano horumar gaarno dowladnimadeena ay bilanto waxaan u baahannahay dowlad keliyana badbaadin kara war ilaahan ku dhaarshay qaran irdihiisa ballaqan yihiin dowladdiisana itaalkaa aragta ay leedahay dadkiisana oo qeybsan yahay miyaa adduun la tartami karaa lama tartami karaa waa ficneed habeen dhaweed markii oo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ciidankii kii booliska calankii militariga gaashiis lasoo dhoobay waxay calaamad ka tahay ciidan aan leeyahay sooma ciidanka xaa kuu joogaa dowladda aan is haynaa ammaankeena ilaalisa oo 3,000 oo ciidan dalka Soomaaliya gudihiisa ka jooga marka in lagu qoslo markaad adduunka fagaaraha joogto in lagu qoslo ma adigana in asgeysan ma meel lagu qoslay
وأنا عشوتا ساس درادد دولتنا إيطال ملك سوما قرن كانوا إرديس وبلغيهم وقيب سنة هاي مركي وحال إسكربا إنا من نمك شقينه ساس درادد وحان كعو سنة يا هدر مدرشة وضتشيق قرن وإريز زراء وقاميو مفهم سنتين دالك حالته كجرو دالك فراغ دستوري وكجرا قناعسي وداغي لايه قف دول مال قشانيس أما هنتي مال قشانيس أما واحد تجارة قشانيس مجرو أدوكي كالمضة دقالنا سيجري واعشتي صوماها دين عفينتي مشروعي سعودي واستاقي فقارياشي عالمي أنا لك ما أقول دولة مني شرعية دولة ما ديت كذا واحدة ماضي أبي أحمد كليا وتي كرنا ما استغنى هذه كرنا دولة شرعية دي واحدة ماضي ها وحنا وكلوا حالي مركب هو أنت لا أنا اللي هذا uncertainty uncertainty اللي هذا ضلكي وكجرا هو أنت لا أنا قف كسته وحيكون هذا هذا دور شد على القلب حتى كأنه القلب كل كذا داوي تزعل كله ممكن وقتها هذا دور شد هذا سوا ورودك هالسه كجرا ساعد يكسر صعد دبعته واي ولا لياله واحد أنك هاصنا وشاكتين تسكو إماتين ومدة سومالي وكروا وشاكا هذا إرجع بقول قفاضة كو قبل كريم دورش ضدك وشاكا هذا لما قال دورش قبل كريم ضدك وشاكا وحي الدورش قبل كرتان تبر ومدة سومالي وشاكا ورئيس الوزراء ومدة تاسكو قامي والدولة قبلاديو قوان كاس قاتا واحد بو أنا فرماجو هاي سنة ماله فرماجو مسؤول استوريجي وحق قال كذا دي بحرين كلا توه لكن قولها وتشي قرنها مسؤولة ضلك كلاسانكو مسي جري كرو مسؤولية تاريخ يا كرتميسا حالة فراق الدستوري ضلك مكوسي جري كرو وهو البوا استك وهو البوا تاجين الدوك يا مالك استوحون ليا وزير ده إنه مركب مالها تجاني الجنوب سوق بلان وردك الدورشي قبض على الوهاية أنا نعاونه أنا إلا شقينه أمي سواء هذا ما ندري كذي وحالا قد هاي بروح لي هذا يوم كان هوسجي وانا الكورة وانا الكدالي دول اليوم جرتو ولا اسك سفرة الديارات اللي سيسارين هاي انت اللي اسك هذا ضل كان بينه فراغ دستوري كجرو او حالات هو انت الان كجرو او هالس كجرو او امنيجي سي إرداء تاجيهين ما له حل قد حين صاحبك ما شاف اللي ايش شباب دين الدعوين كو قادان مقدشو مول حديث ولي دار دعوه قبت ما هو كان ودباتو انت عرفتها يقول لي هذا ورد كيف قعدت وكبيح ربابة وكعسل إلهي معتود كقبتها مركز ذنبه ضلكي قعدت وكبيح ربابة وحال يسكربا مسؤولية داس بضاحة الدولة قبلادية وإمقلايا مسؤولية داس إني قاتانا لقربا مسؤولية داس إني قاتانا لقربا رئيس الوزراء مضاحة إسكوية الدولة قبلادية شرقه قوانا هل قارو الدورشة هل ددجي هالسعطو dalka xaaladan kuma sii jiri karo mas'uuliyadana alaa lagu idmay alaa qaadaysid cidii ka hortimid oo dhibaato sheegtana ummadda u sheegay hor imaaw dadka hor imaaw hebel wax laga soo casiilay ay dheh war dowlad goboleedyada ku dhimayeen sanataradani saaxiibkii seenta dhigdheer sanatarada laga reebay la soo dhameystiro waxa uu maleynaa galmudug waxay ku dhimayeen meesha la yiraahdo iyo Jubbaland walaalayaal soo dhameystira sanatarada hal maalin doorashada qaban kartiin qabta si aan u bilaawno tii xildhibaanada dadka Soomaaliyeed say kor ugu hayeen arin doorashada waa ku daaleen waa lagu dhiig baxay waa lagu dhibtooday dalkii xaalad halis ku jira intaas ku soo gabagabeynaya mar kale waa idin mahad celinaya ina xafadan ka soo qayb gashaan ina ay xal marisaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh